soo gaadhaan. Waxaa sida sheegaysa wakaalada wararka Tasnim News Agency waxa ay sheegtay in dadkii ku dhintay diyaaradaasi dhammaantood xogtoodii gaar ahaan intii diyaaraddu ay ku jirtay qalalaasaha wixii uu duubay sanduuqa madow loo ogolaaday in loo duuliyo dalka Ukraine gaar ahaan magaalada Kiev. Wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in Iran cadaadiska faraha badan ee kaga imaanaya dunida haatan ay kasabtay inay gudbiso dhammaan xogta oo dhan si loo ogaado wixii ka dhacay diyaaradda gudaheeda kadib markii gantaalku haleelay. Laakiin waxa sida ay sheegayaan dad saraakiil khubaro ah waxa la aaminsan yahay in aan rajo badan laga qabin xog badan laga helo goobta marka laga reebo qaylo maadaama ay yareed ayaa la yiri hadalka iyo codsashada ay sameey karayeen duuliyaasha diyaaradda laajiga diyaaradda oo gantaalka uga soo dhacay jidhii horeysayba dhinaca shirka isla markaana la aaminsan yahay in dadkii ugu horeeyay dhintay ay ku jireen duuliyaashii ama labadii duuliye diyaaradda duulinayay. Xasan Risaai oo kamid ah madaxda sarsare ee hay'adda Iran u qaabilsan dhinaca hawada ee la yiraahdo Iran Civil Aviation Organization ayaa waxa uu sheegay in ay tan ka turjumayso sida ay dawladda dalkaasi ula shaqeynayso cid walba oo daneynaysa in arrintaasi wanaag lagu baaro. Waxa uu yiri waxa dhammaan muuqday ayuu yiri in ay dawladdaneedu ay isku dayday inay turjunto codad wixii ahaa ee ku jiray sanduuqa sanadiiqda madow ee diyaaradda taasoo lagu guuldaraystay in codadka oo tarjuman la soo tuuro. Laakiin wuxuu sheegay haatan waxaan ogolaanay in loo diro magaalada Kiev oo ay uga sii gudbi doonaan dalka Faransiiska ayuu sheegay. Dawladda dalkaasi Ukraine ayaa ka mahad sheeganaysa ilaa hadda si Iran ula shaqeynayso iyadoo